Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha sharafta leh, kusoo dhawaada taxanaheeni quraan iyo saynis, taxanaheeni saddexaad. Maanta waxaan soo qaadanaa aayado kitaabka quraanka. Waa suuratu yaasiin, suuradda 36 aayadda 8. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqiduun. aayadka ilaahi wuxuu ku leeyahay suuratul waaqica, suuradda 56 aayadda 71 iyo 72. afara'aytum annaara allatii tuuruun a antum ansha'tum shajaratahaa am naxnu lmunshi'uun. sadaqa allahu alcadiim. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa aayadahan waa ilaah kan idin yeelay dab idinka siiyey geedaha cagaaran si aad u shirtaan. ilaahi wuxuu na siiyey geedaha cagaaran ayuu dab naga siiyey. sidoo kale ilaahi wuxuu leeyahay afara'aytum annaara allatii tuuruun, dabka aad sidatiin a antum ansha'tum shajaratahaa am naxnu lmunshi'uun. idinka maa abuuray dabka aad shidaysin, geedka ku baxayso, geedka ma idinka abuuray mise annaga ayaa abuurnay? weliba ma ku fikirtay geedkan cagaaran inuu dab ku jiro, gudihiis inay dab ku keedsan yihiin? maanta waxaa aan joognaa duni ay saynska iyo casriga uu aad u sarreeyo. waxaa la sameeyey baaritaan geedaha cagaaran, waxaana la sheegay inay ku jirto cadad koronte oo laga dhalan karo geedaha, taasoo ay shidi karto dhammaan magaalada. sida lagu soo saari karona ay diyaarintiis iyo farsamadii iyo qalabkiina la wado. waxaa ognahay in dhirtu ay isticmaasho maadada kaarboonka loo yaqaano. kaarboonkaas markii dhirta ay qaadato waxay u beddeleysaa maado isku jirto oo dabiici ah, organic compounds. maadooyinkaas isku jiraan ee dabiiciga ah, dhirtu qaar waxay u isticmaashaa koritaankeeda dabiiciga ah, qaarna waxay u gudbisaa xagga hoose ee xididada dhirta. halkaas waxaa diyaar ku ah bacteria loo yaqaano rhizobium bacteria oo dhanka xididada joogto. bacteriadaas waxay burburisaa organic compoundkii soo gaaray. burburintaas darteed waxaa dhalanayo qulqul korontideed. saas darteed waxaa awood loo heli karaa qulqulkaas koronti in la soo saaro oo la jiradgareeyo ama la shito, iyadoo dhirtii ay shaqaynayso aan wax effecta ama dhaawac aan gaarin. haddii aan eegno gadaal ama aan aadno gadaal waqtiyadii hore, dadku waxay isticmaali jireen si ay dab u shitaan qaabyo kala duwan, sida magadka, friction fire, magadkana waxaa lagu isticmaalaa lagu shitaa geedka qallalan. inta badan geedo qallalan oo laisku rugo. haddii hataa aa u fiirso dhinacan, aayadahan labaduba micnahoodu waa sidii la rabay. maxaa yeelay weli waxaan isticmaalaynaa isla geedkii oo aan ka soo saarayno dab, ama ha ahaado qulqul korontiyeed mise ahaado dab xulcaya oo caadi loo taaban karo. ka war, waxaan haysanaa kitaab oo aad u qurux badan, aadna u macaan. haddii aad fiirisid, akhrisid, fahantid oo aad ka helayso aqoon aad u mug weyn. weliba waxaa ku jira kuwo qaar aan la ogaanin ama baaritaan aan lagu sameynin mise aan la gaarinba. barnaamijkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. waa aniga walaalkeen idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.